wax badan hadal ku fogaan maayo ninkii la oran jiray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaalida ee la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu halqabsi ka dhigtay oo Soomaali lagu doortay Soomaali heshiisa dunidana heshiis la arrinkaas maanta ayuu hoos yaalaa ninka la yiraahdo Xasan Sheekh haddii arrinka aad ka dhabaynin wixii lagu doortay de wax ka soo bixi kara waad garanaysaa mid kale ninba hadday ku maamahayay hal xaraan iyo xalaal ma dhasho Axmed Madoobe taariikhdiisa waan ka waranaa Axmed Madoobe horta marna lama dooran 12 sano oo haystaa mar qura lama dooran haddaan been ma sheegay ragii gobjooga waa wada joogaan hal nin oo la tartamayna ma jiro hal nin oo la tartamay ma jiro marka wuxuu niyadiisa ka doonay inta cimrigiisa ka hadhay inuu Jubbaland iska wada wato oo uu ka urursado wixii hanti ah hantina ma deeqayso waxa ma gaadhaan wax deeqa ma jiro waxaan dhihi lahaa haddii raggu Soomaalidu caado badan fara badan bay leedahay intaas oo mujtamaca oo kala duwan baanu nahay haddaanu xumaan damacno xumaan saan rabnaan u samayn karaa sidaan rabnaan u samayn karaa haddii arrinkan laga hortagi waayo oo dawladda dhexe ay ka hortagi weydo waxaa bilaabmaya fadqalalo iyo dagaal iyo inaan ku dhawaaqno ururka xoreynta Jubbaland waan ku dhawaaqi karaa waayo marxaladeedii waan joognaa cid wax ka qabanaysana ma aragno waxaan anigu halkale waxaan ku soo goweynayaa Axmed Madoobe ciidamo dooranin 12 sano xoog ku jooga xooggiina wax iska dhiciyo oo wartag yiraahdaa la waayay waxaan leeyahay dawladda dhexe ayaa wax walba maanta hoosteeda yaala arrinkan ama wax ka qabta ama Soomaali col ah adduunkana col ah ka soo saara meesha maamul goboleedyo jira dhammaantood wax alla waxaad samaysaan bay isha ku hayaan waxaad ka soo baxaa yaa la rabaa in la fiiriyo beesha caalamka ayaan mahadnaq u jeedinaya waxaan ugu mahadnaqayaa 2019kii markii Axmed Madoobe doorashadiisa ay ahayd cid la tartamo waayay is xoogay annaga oo musharaxiina uu yiri kuwaas lala hadli maayo albaabkan naga soo xidhay beesha caalamka warba ka soo saar waxay tiri ma aqoonsanin sharcina ma aha si sharciyana wax lagu ma dooranin ma aqoonsanin bay tiri inta darteed mahad baan u celinayaa haddana waxaan beesha caalamka iyo dawladda dhexe ka sugeynaa inay mowqifka ku aadan ka qaataan arrintaas wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh